bismillahirrahmanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo idinkaga imaanaya xarunta TV-ga Jubbaland ee magaalada Muqdisho. barnaamijkan gaarka waxaa idin la socodsiinaya anigu Cabdikariim Maxamuud Shidana. barnaamijkan gaarka waxaan ku eegi doonaa munaasabad gaar ah oo lagu sagootinaya qaar ka mid ah ardayda jaamacadda SIU oo jaanis waxbarasho u helay dalka dibadiisa. ardaydan deeqda waxbarasho ka helay dalka dibadiisa ayaa waxa ay ka heleen jaamacadaha Makerere iyo Imbarere ee dalka Uganda, waxaana tiradoodu ay gaarayaan 26 arday. 4 sano ayay ku qaateen kuliyadda Medicine Engineering qaybta jaamacadda SIU ee magaalada Muqdisho, halka sano ee u dhiman ee ku soo dhameysan doonaan tababaro iyo waxyaabo dheeri ah labadaas jaamacad ee dalka Uganda. 65 arday ayay jaamacaddu u qorsheysay sanadkan in ay deeq waxbarasho u dirto dalka dibadiisa. jaamacadda SIU oo looga bartay in mar walba ardayda ay dhiirigeliso isla markaasna ay deeq waxbarasho u geyso dalka dibadiisa. munaasabad kooban ayaa loogu qabtay ardaydan jaamacadda SIU oo tiradoodu ay gaarayso 26 arday. waalidiin, macallimiin iyo maamulka jaamacadda SIU ayaa ka soo qayb galay iyadoo Jubbaland TV ay si gaar ah marti uga heyd barnaamijkaas. dadkii ka hadlay munaasabadaas ayaa dhammaantood u soo jeediyay ardayda inay ka faa'iideystaan aqoontan ee sida bilaashka ee jaamacadda u siisay isla markaasna ee dalka iyo jaamacadda iyo waalidiintooda wax u taraan. dibadda in loo geeyo ardadan ay ka faa'iideysan saas arjina insha Allah hadii la yiraahdo waan dhaqan jaamacadda SIU ay leedahay caadi ah. haddana waxaan jecelahay wax yar kadib ardada baxaysa qaybo ka mid ah hadallo inta ka soo jeedin doonta sidoo kale maamulka jaamacadda hadal ka soo jeedin doona intan iyo xafiiska international diskiga jaamacadda Dr. Andrew. laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo mid ka mid ah waalidiinta oo bal fikradiisa iyo qaabka uu arka ardada inuu diro waxa weeyaan nala wadaagay insha Allah hadii la yiraahdo marka qof idinka kamid ah ku soo dhawaado. magacayga marka hore markaas Imbar waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Axmed Ismaan. waxaan ka mid ahay ardada maanta baxaysa ee u socota waxbarashada dibadda insha Allah waalidiintooda. awalan marka waxaan rabaa inaan ilaahay baa mahad aan iraado. marka labaad waxaan u mahad celinayaa jaamacadda iyo maamulkeeda dhammaan oo barnaamijkan isaga suurtana geliyay. waxaan leeyahay mar kale waa mahadsantiin. mar labaad waxaan leeyahay ardada maantay fursaddan heshay ka faa'iideysta fursadda ilaahay uu idin siiyey. wax bilaadan dhiibi kara maaha, waa ilaahay awoodiisa ku timid. waxaan leenahay oo mar kale mar saddexaad aan leeyahay ilaahay idin la garab galo guriyihiinii oo kale ilaahay idin kaga dhiga meesha insha Allah. aad iyo aad ayna jaamacaddu u mahadsantahay waana mahadsantahay. awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. allah ayaa mahad leh. aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maasha Allah tabaarakallah. ugu horeyn ma aqaan hadalka farxadda inay dhinacayga marin doonto waa laga yaabaa maasha Allah. allah ayaa mahad u sugnaatay dhammaanteed. bacdigeeda waxaan mahad u celin lahaa madaxda jaamacadda, guddoomiyaha ugu horeeyo, intii aasaastay, intii qalab dhigtay, intii quwad gelisay, intii tacliin ka bixisay, bahda SIU oo dhan, madax iyo macallimiin, digtoorada dhammaan waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan u mahad celinayaa, waan u hambalyaynayaa. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. ilaahay ha idin liibaanaan leenahay. maanta meeshan waxaan u wada nimid waa ubadkeenii ay soo barbaariyeen, tacliin mugle ay siiyeen jaamacadda SIU. aad iyo aad ayaa maaragtay wallaahi markaan aniga iska soo qaada khaasatan waxaan ka mid ahay waalidiinta aad iyo aad maaragtay gacan xoog leh ugu geysatay oo taakulan aad iyo aad u fara badan oon halkaan aan ku soo qiimeyn karin. dad badan oo ila midna way jiraan. wallaahi waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo. madax sare, macallimiin, digtoorada dhammaan ilaahayna garabkiina ha galo. bedelkeedana ilaahay jannadii firdawsa ha idinka dhigo biidnillaah. dunidana allah idinku badbaadiyaan leeyahay. ardaydeeda baxaysa waxaan kula dardaarmi lahaa tacabkii la geliyey, tayada iyo dhammaystirka nasiibka gaarka ah ee u heleen. jaamacadaha maanta jiro waa laga helay aan la dhahaynin oo la wada ogyahay oo aan ammaan ahayn oo xaqiiqo ah. tacabkaas tayada ka dhiman ee laydin kordhinaayo ee maanta aad u safraysaan aad u tegaysaan waddan aad iyo aad uga fog eheladii iyo guryihii iyo walaalihii iyo dadkii iyo dalkii Soomaaliyeedba waa inaan la luminin, waa inaan sheeko lagu beerdaraynin, waa in casharada dhegta loo hayo, waa in macallinka isha saas loogu hayo, waa in meeshii la idin geeyo
oo inaad wax ka qabataan wax ka korsataan loogu talagalay aydan dayicin ammaanada la idin dhiibay caruuray waa inaad maanta gaashaan qaad baa wada tihiin abaalka celintiisa waxaan ka dhigaynaa ama aad ka dhigtaan inaad gudataan waajibaadka hadhow la idin dhiibay oo idinka baraatigada la idin siinaya ahaadeen casharada ha ahaadeen meesha la idin dejiye ha noqoto maxay ahaatay noqda dad abaal loo geli karo oo magaca Soomaaliyeed huwan asi ka soo bixi kara noqda waxaa tihiin maanta kuwa ina hortaagan ee dhidba jaamacadda kuwii bedeli lahaa biidnillaahi tacaala waddanku wax u qaban lahaa dhibaatada ina haysata inaga dulqaadi lahaa ilaahay inaga dulqaadi doonee qalin in lagu qaaday u baahan tahay kuwii waxaan rajaynayaa inaad noqotaan ka soo baxa kartile isku duuban mid ah guddi samaysta iska warqaba bugto iyo baahiba biidnillaahi tacaala ku jooga waddankaas walaalaheena ah ee ina saaciday si nabadgelyo leh farxad leh kalsooni leh derisnimo leh taageerada la ina siiyey taas inaynu ku gudno ayaan idinku dardaarmayaa arday ahaan inaad isku duubnaataan mid aad ahaataan awalba Soomaalidu waa dad muslimiina isku diina isku afa isku dhaqana isku wada ra'yi ah wax uun baa kala helay mooyaane marka dadkiina soo kacay waa dadkii wixii hore oo dhan naga bedeli lahaa mid noqdaan ilaahay far noqda macallimiintiina had iyo goor laabta ku haya u mahad celiya una duceeya farxadeyda ay tanka ka baxdaan u maleynaya aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa madaxda halkan taagan ajnabi iyo dadkeenaba walaalaheena na garab qabtay biidnillah kor Allah idinka dhigo SIU abaar ma hesho SIU lidibkeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Maxamed Cali Xasan waxaan ka mid ahay waalidiinta oo maanta oo ardaydooda ka baxayso garoonka Gabadha Aadan Cabdi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maaragtay fursadda qaaliga ee ardaydeena ee noo siisay jaamacadda waana uga mahad celinayaa meeshaan waxaan ka salaamayaa waalidiinta kale oo aniga ila mid ah iyo ardayda baxayso dhammaan waxaan ku guubaabinayaa in ay noqdaan dad isku xiran oo ay maaragtay waxbarashadoodana hore u horumariyaan insha Allah taala waxaan u rajeynayaa guul ayaa u rajeynayaa waxaan halkan ka salaamayaa madaxda jaamacadda dhammaan iyo gudoomiyaha kulli ayaan ka salaamayaa assalaamu الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان مدحda jaamacadda SIU ardayda galaaska ah waalidiinta sharafta leh dhamaan waxa ku salaamayaan salaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galno barnaamijka exchange program ee jaamacadda noogu tala gashay ugu horeyn aniga waxa bartaa medicine qaasata faculty of medicine ardayda shanaad ee jaamacadda SIU ee dirtaan waxaan aad ugu faraxsanahay inay jaamacadda Jaanisna siisay aysan jirin jaamacadda dalka kamid ah inay jirto barnaamijkan exchange programka ah aan jecelnahay inaan ku soo qaadano halkaas clerkship iyo internship oo si sax ah aan u kala socono jaamacadaha kala duwan ee kala ah Makerere University, Mbarara University iyo Nairobi University waxaan jecelnahay insha Allah taala inaan ka soo faa'iideysano waxaan aad ugu faraxsanahay waxaan jecelnahay inaan guulo badan soo hoyino inaan insha Allah taala u soo hoyino guulaas dhamaan ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyn danana qaas ah sidoo kale waxaan mahadsan waalidiintii waqtiga siiyay يعني نقرب تاجنا intaasna lagu dhiirigeliyay intaasna ay waalidiinta waxa leena wanaagsantiin dhamaan ardayda jaamacad SIU halka ay la joogta iyo aniga waxaan matalayo waxaan jecelahay inaan ka faa'iideysano waqtigeena maadaama lacag naga baxday maadaama naga baxday waqti maadaama naga baxay yani dhul islaameed aan tageeno waxaan rabnaa inaan bedelkeedaan soo qaadano insha Allah taala taas ayaa waxay noqonaysaa بدل أم أول مرين أن سيدون والدينتنا الصوماليات ما دام أيجا أول مرة نقولين أنا جن وأنا نقنع ضدك كجوابي لها وشقيل لها أمد الصوماليات وشقيل لها والدين تودا عرور تودا ضدك دبعت السن وواح أصبرنا وحيد هاي إن نعاونه ولا لهنا الصوماليات قفك الصوم مسلمة أنا وشقينا إنه وحل عقل أنا وحنجعلنا إننا جارنا مستقبل كهموين إن شاء الله تعالى هذا وما سنتين هذا أفرح سنة درنكي ما هي سفرة وحاوم هذا علنا يا هرتا فرصة خالقة جامعة دي صورة جلسة ما ممكن من حديدة سواء كلا تد وحاعات وهم هذا علنا والدين تيدا وأيضا سواء كل صورة جلية إن برنامج كان إكسان برنامج كفايدة إن شاء الله وحارجينا إن نقدر مد كفايدة فرصة خالقة إيه هالشيء
runtii fursadan qof walba oo maanta jaamacadaha muqdisho ardayda dhigato ma heli karaan waa mid jaamacadeena kaliya u qaasan inaan inta wadanka ka tagna wadanka kale dad maanta claship internship ku soo sameeyo runtii aad ugu faraxsanahay waxa midaas mahad khaasan ugu cilaa jaamacadeeda oo ii suura gelisay inaan maanta wadankayga inta ka tago wadan kale dad aan ku soo qaato internship iyo claship marka aad u mahadsantihiin العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مانت أدبان وفرحسنها فرحت دي ذميل الصوكة وكرمين ما دام إلهي سبحانه وتعالى نو كسي جامعة إسا يونسي سي فرصة أو خالية وحن كمل مقعي وعبد القادر فرح وحن كمل أرضية إنجنير كا برتو كمبيوتر ساينس كا ما أنت فرصة وحن أهلا إن هذا ودن يوغندا خاصة إمبرارا وحرجينا إن شاء الله إن نقدر أرضية ووفي عن جامعتنا أن كنا قدونا أرضية ونيسان إلهي بس سبحانه وتعالى ما له وحنا وما تعلنا يا والدين إذا ما أنتوا نوطا غيرين أرين كان إن كقرب قلنا جامعة فرصة قريبة نسيسي إن بدن واهمينا إن فرصة عمل إن هلا إن كستو إلهي سبحانه وتعالى إذن ما أنت نبحه كنت فرح دي هذا مسوكا وكروانك فرح سنة إن شاء الله. قدومك حين كلنا عمامك مالية جامعة مركا هذا الذي قدم بيسان لنا يصد شافعي بان نوصل حير الدونا مركا هالمرة لسه دوي يسد سيد. السلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنتم حشرف وين نوا إن سجوتينو مركي أفراد أرضية كلية عفماتك سيستر 8 وصعد الوطن كيوغندا كينيا. حنقول هذا دائما أرضية إن كيف إذا فرصة غالية وجامعة ACC هي جامعة تبدو فيها لبا وكيف إذا فرصة غالية. محاسبة كلو مهدنا جامعة SIU إن مدة لا يصب بلا أساس كذي لهذا وتيدا أرضية كرو كبع سمر والمسكودية إن كرو قادو تيدا أرضية وحاسبة كلو مهدنا والدين تا جهد بدن كل شيء وهير كان سوق أرسينا وحني لها أرضية فرصة غالية كيف إذا أرضية كوريوس كيف إذا استي وحنا جامعة مر والغوطة الشبابين يسوي صارتوا دخاتير تيلا ووحكة بدل كره باهيدا مركز دل في دلعة الماسكة. أدنى واحد كسر ويننا دكتور أندرو سوالا سعتان مركز جامعة هذا كيف وقتان وكينيا أما وغندا تكتان خفك إذا معمول الدونا أما إذا عاون دونا وجامعة هذه كحر الدونا أنت عند مغنتين وجامعتك مغنتين ودكتور وكيلا مركز حلو بهاي هذا اللي يدي شيء دردارن كيسة يخبرتي سينا كفايدستان علمي يسالو باهي ان شاء الله دو لا يراهدو ومركز على سعتان هذا نوقفك اذا لا سocdo idan caawin idaaradda qayb idan ka haawayaan in sha Allah duu la yiraahdo jaamacadda isayno runtii intuu joogay wax badan uu qabtay xafiiska international diskiga marka now I would like to call here Dr. Andrew Kaila and I would like that you will take him an example. Is one of the most rewarding moments for me in Somalia. Because at SIU we have taken extra steps to ensure that our students are well trained. These students you see are not only medical students, but they are also computer science students here. So in this group, these students are going to Makerere, Mbarara, and we shall also have students going to University of Nairobi. We have taken this step to be able to equip our students with the necessary skills to become medical doctors, to become reasonable engineers that can solve tomorrow's problems. Now, at University of Nairobi, at Makerere, at Mbarara, these students integrate with the local students. So they study the same curriculum as those students and they sit the same exams, and those exams are transferred to SIU, and SIU will print their transcripts. And they stand better chance of becoming better doctors. So I am really glad for the parents for having supported their students. I'm glad for the SIU fraternity for having supported the students, and I'm really glad for the entire Somalia for having given the students support, because if there was not relative security in Somalia, the students wouldn't have gone to school. But this is an evidence that actually in Somalia people are studying. You know, I am Ugandan, but my heart is Somali. So thank you very much. waxaan jeclaan lahaa qofka ugu dambeeya noo soo xiriir inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca waxbarashada jaamacadda mudane Shaafici Diri Cabdi. Uga soo dhaweey.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة في الحالة نوتها ساكنة سويتني إنه أرض جامعة إسرائيل وصعد برنامج وحبرش إسداف أرضي ورصعد جامعة كلتوين اسمها كينيا يوغندا يوصعد على جامعة كوبادو أحمد كريري جامعة لبادو أمبرارا كينيا أو سنة يوم بيحضر إن شاء الله تعالى دولها سنة كده حديثة سيد البرنامج كواهنا بحان أسبوع كبعد يقول إن شاء الله تعالى دولها جامعة نيروبي كينياتا بدتجي دورته waxaan u mahad celinaa waalidiinta Soomaaliyeed ee ardaydan sharafta leh dhaqaatiirta isku injineerada dalay isla markaasna ku aaminay jaamacadda ISAU inay ku soo biiraan isla markaasna ku sii aaminay in arday isdhaaf loo geeyo jaamacadda dibadda ah waa sanadkii sanad oo jaamacaddu ay arday dirayso ardayda hore waxaan uga baranay inay la soo tartamaan arday ka timid jaamacado kala duwan oo ku yaal dunida dacaladeeda sanadaan soo qaato sanadkii la soo dhaafay ardayda aan dirnay waxay ku kala sahaayeen oo jaamacaddan Kiriri la fadhiyeen arday ka timid Mareykanka arday ka timid Canada يا أرضك كتبت ودمك لدوان ويوروب هدف أول أرض الله درا وحوي هاي إني أرضك كسر فايدان حياه برنا إن شاء الله تعالى دولة حياه بدي أراد إن حاجة كسر هلان وتشدد أول إنه واحد تاين أرض الصوماليات أي هلان وحبرشات تياله سلوا سوا كلية أول مهم سن سيد كلية عافماتك يو كلية إنجنيرينج أرض السنة كانت شعاد وطلقش أنا بحان أسود شراء إنتاج شيب يو كلاك شيب واللحدن يشان أرضي ما أنت واحد بحا دفعات وجوه الرئيس إن شاء الله تعالى دول هيدمو وقفوا من لبعتن يلحقوا هو كلنا حرجينا إن شاء الله تعالى إننا يسافر كده فوزي وحن كرجينا إن أرضي الصوماليات ما أنت أندرين وجامعات درسوا إن الدور مقعد إلاليان كو إن مقعد مقعد دلك اللي تيجي دونان ودلك وديهين إن ضد كورونا ما نسيش شرف له إسلام مركز إن ضد كده خلاص برنايان إلا صوت تمام تحت عافمار طبعا نقدر نكوك بوليس إن شاء الله تعالى دول هيدمو لو واحد رمينا إلاليان شرف كجامعات الصوماليات موتشيانا برشلونة هيرك إجرسنتها جامعة كويا للدلكة إن يشوفتوا هير لا تهتم كران جامعة كويا للجنود هرمرتي إن إلى السنة الرابعة كان صدق هذا الربعين إلى اليان ومقعد جامعة ISAU ومدة تبعيسي إن شاء الله تعالى سجن أي موتشيان دور في عني موتشيان مقعد كل الربعين إلى اليان ومقعد والد كيسوت تربيي كيسوت ذلك وحصاب بري نفي ما صفري مقعد كل الربعين إلى اليان أوضم بياهي وكود الشخص جاء سنة الحكومة مهذا مال أما كمرنو أما كمو ماشي أتكتر وحنا كده إن شاء الله تعالى مقعنا إلى لسان شرفنا سوهي بنتن وحرجينا السنة كان ضمن إن شاء الله تعالى ما أنت إذا ذيك وصل الله بتنا نسكو إماد دونه بقول سوهي شرف سوهي ما أنت نوحنا الله هاي أمبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرضنا حكومة غنات دونا هالسنة وأسكت برنامج كان وحيو سعودان أرضنا عافمات كلاكشيف هذا هو كتير كبحاية وسنة في سنة أرضنا بحاية خلق سنة أي حاجة سوت شو يعني أرض إنتنيرو كنا سيدا وكلا لبضع سنة وطن بيستنا قارة سوت شو قارة نوع سوت شو هر سنة أرضنا ما تبحث إنتنيرو كوارض سوت شو لهاد هالك سنة قدام بعيد وسنة كأفراد مركا حرجينا ما أنت إذا صلى الله هالسنة وحفظت إن شاء الله تعالى دول هيدنا إنه نسوي ما دون فرحة سودوين تسيد ما أنت قلتها فرحة سودوين إن شاء الله تعالى دول هيدنا يقولون سوي جامعة يوكل السعودان أرضنا ما تبحث ولا جامعة بحثوا السعودان جامعة من كريري جامعة إمبرارا لا جامعة يكويا لندن يوغندا لبض جامعة هذا تجاه الأرض أسبوع دبنا واحد بها الأرض كي سعودة جامعة كويا إن شاء الله دولها وعن كل أرض كل دار ما نشيجا على دينا ولا صعود دونا وأنا إن شاء الله تعالى اللي كور هيد دونا وفد جامعة صدر سايمات دونا إن شاء الله تعالى دولها هيدمو صدق أسبوع كبعدي إن كونا إمات دونا في السلدين إن شاء الله تعالى دولها هيدمو وحنا كور بحد دونا جامعة أو تكتين مامل كيدي معلمين تيدي أرضي دي إن شاء الله تعالى دول المحرجينا بص في ميتش أديكو سيسمي صدق أسبوع إن شاء الله تعالى أتشوفتان اللي دي إمات دونا ديك واحد guud ahaan daawadayaal barnaamijkii gaarka ah idinkaga imaanaya Jubbaland TV Muqdisho ayaa halkaas ku soo gabagabeynaya anigu Cabdikariim Maxamuud Shidana ayaa barnaamijkan idinla socodsiinaya Cabdullaahi ayaa soo saaray isla markaasna farsamada barnaamijka ka qaabeynayay tan iyo kulanti dambe waa bahda Jubbaland TV oo idinla sidaas nabadgelyo adigoon hareer marin waygiya ilmiga iyo wadani nimo aan xidi ku haysan
SIU